إنا لله وإنا إليه راجعون سرية قاس عبد الله فضل إيمان وإمك مرحوم عبد الله فضل إيمان إلهي نحرسنا كورابي وحي مسلمين كورينا الله نحرست إننا إلهي هنقول ونحرست قرن كورنا وكتعزيديننا cidamada qarankana waa ka tacsiideynayna ciidanka boliskana gaar ahaan baan uga tacsiideynaa oo taliyahoodii ahaa dhammaantood ehelkii iyo qoysaskiisina waa ka tacsiideynaa carruurtiisa waa ka tacsiideynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa halkiisii cawl khayr qaba in qoyskii iyo ehelkii uu geliyo qof waliba waa dhimanayaa qof waliba taariikh ku dhimanayaa marxuumka waxa aynu maanta halkan u joognaa ilaahay u baryo inuu jannadii ka waraabiyo dhammaanteen jamaca intaa leeg ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu naga aqbalo in jannadii firdawsa ku waraabiyo waxayna tahay qoladii ugu horreysay akhriday wixii uu taariikhdiisa iyo waraaqdii waa tii laga akhriyey waxaynu ku soo koobaynaa ninkaasi qarankun buu shaqaynayay intuu noolaa 30 sano u dambeeyey somaliland maalintii la aasaasay ilaa maanta waxaan u maleynayaa nabadgelyada nin la mida mooyin uga badsay dhisideeda iyo ilaalinteeda inaanu jirin sarkaal hoosu ka soo bilaabay iyadoon station jirin iyadoon xabsi jirin ayuu ka soo bilaabay stationka raggii horreeyay furaya fariistay oo ahaa ilaa maanta ciidanka dhan ee sareegaas uu ka dhismay intaas soo taliyo soo shaqaysana operation kumbo ahaa hawlgelinta telefoonkiisu ma damayn ma seexanayn ma nasanayn nabadgelyadu buu taagnaa hadhiyabe ilaahay uu ka abaalmarin doonaa ummaddiisuna ilaahay bay u baryaysaa taariikh ifka oo wanaagsanna wuu ku leeyahay oo halgan dalkiisa qaranka u dhisaya ilaahay waxaan uga rajaynaa jannadii firdawsa ka waraabiyo isaga u naxariisto innaga inooga daba naxariisto qoyskii iyo carruurtii iyo qoysaskiisiina ilaahay samariya baan ka siiyo caawil khayr qabaynu ilaahay ka rajaynaynaa inuu reerkana ugu soo bedelo